بسم الله وحين صورة كشينا ورئيس قام الله يلنا شمس حسن سعيد oo gudoomiyaha ururka Somcon oo u dooda xuquuqda carruurta Soomaalida waxaan ka wareysanaynaa arrimaha mashruuca Carawelo young ama Carawelo dhalinyarada oo ku saabsan mashruuc lagu talagalay dadka da'da yar rag iyo haweenba marka hore Shamso mashruucan muxuu kaga duwan yahay mashruucii hore aad u qabateen Carawelo waa ku mahadsantahay maxamed wareyskaaga runtii maadaama aad markii horena mashruucii hore la socotay Carawelo kaas wuxuu ahaa mashruuc loogu talagalay dadka waaweyn oo maaragtay xagga dhaqamada dhibka badan ama dhaqamada xunxun waxa lagu magacaabo maaragtay ama dhibaatooyinka keena si looga hortago doodaha bulshada loo fududeeyo ayuu kii hor ahaa kan marka maadaama dadkii waaweynaa ay aan 2 sano soo wadnay mashruucaas ayaa hadda dhalinyaradu maadaama ay yihiin dadkii mustaqbalka ayaa hadda Carawelo oo dhalinyaro ah Carawelo young sidaas keentay inaan maaragtay sababtaas marka yaa ka soo qayb galay shirkan maanta halkan aan ku qabateen furitaanka ah waxaan u maleynayaa horta dad badan ayaa ka soo qayb galay ma sha Allah dadka Soomaalida ah ururada Soomaalida ka socda waxa kale oo ka soo qayb galay hay'adaha qaabilsan wadankan hay'adda aan ka wada shaqeynayna mashruucan oo Mufisi la yiraahdo iyo hay'ado kale oo ah kuwa kala duwan ayaa maaragtay halkan joogay maanta oo ka qayb qaatay furitaanka waa gartay barnaamij kasta oo la qabanayo hadaf ayaa laga leeyahay muxuu yahay ujeedada ama hadafka aad ka leedahiin barnaamijkan ama mashruucan Carawelo mashruuca Carawelo maadaama uu Soomaali la yiraahdo islaan dhib badan bay ahayd boqorad bay ahayd sheekooyinkeeda marka qaarkoodna aan dadku isku raacsanayn waxyaabaha laga sheegay waxay dhaliyaan inay waxay furfurtaa doodaha sidii aan ku tijaabinay mashruucii hore in dadku ay ka hadlaan dhibaatooyinka jira ama ka hortaga si loo sameeyo waxa loo baahan yahay bulshadu wax alaala wixii qaldan ama dhaqankeeni hore ku qaldanaa ama ku fiicnaa in laga doodo markaas ay bulshadu ay dhihi karto waxaas nuuma haboona ama waxaas waa dhaqan qalafsan ama waa wax fiican taas ayaa maaragtay horta ay tahay ka hortag iyo isla markaasna in waxyaabaha qaarkood sida dhaqamada waxa kamid ah dhibaatooyinka dhaco kaleeto sida gudniinka kale in kastoon gudniin gooni loo qabanaynin waxa kale oo jira in maaragtay guurka qasabka ah waxa kale oo jira dadka maaragtay dhibaatooyin loo geysto oo xag jirdila ah wax alaala wixii xuquuqul bini'aadmiga ka hor imaanaya dhibaatooyinkaas si loo dareemo ama dadku uga doodaan ayaa dhinac qayb lagu talagalay qaybta kalena hay'adaha ka shaqeeya barnaamijyada noocaas ah oo iyagu ka ah partnerka ah waxa loogu talagalay inay hay'aduhuna fahmaan dhaqanada kala duwan oo dadku ku nool yihiin ama wadamada ay ka yimaadeen marka taas ay horta ujeedada laga leeyahay mashruuca uu yahay dhinaca in aqoonta dadka la saa'idiyo dhinaca kale in wacyigelin la sameeyo waxyaabo badan baa dhaca qaladaad dadku inta badan ama ay diinta ku nisbeeyaan ama ay dhaqanka ku nisbeeyaan aan labadoodan midna raacsanayn laakiin dhaqan soo jireen ahaa oo maaragtay qaldanaa ahaa taas si lagu bedelo waxay ku fiican tahay in bulshada ruuxeedu ay dood la siiyo laakiin Shamso meesh u baahan in wax laga qabto ama dhaqanka qaldan wax laga soxo waa dalkii Soomaaliya sidee rabtaan marka inaad idinka Somcon ahaan aad mashruucan ku gaarsiisaan oo wacyigelinta halkan aad ka wadaan halkaas aad geysaan horta waa su'aal runtii aad u fiican Somcon markeeda horeba wuxuu ahaa ururka maaragtay u dagaalama xuquuqda carruurta oo laga sameeyay taariikhdiisa hadaan dib ugu soo noqdo wax yar ururkan waxa la dhisay 1980 iyo lixdii ayuu howlgal bilaabay 88 ayaa xamar xafiiskiisa Shabeelle ku ooli jiray wuxuu ahaa xur xuquuqda carruurta u dagaalama ama xuquuqda carruurta sidii waagaas dawladda Soomaaliyeed ku saxiixleed nasiib wanaag hadday saxiixeen dawladda oo ay sanadkii hadda dabiiqadiisa saxiixeen intaas sano marka Somcon waxay ahayd in xuquuqda carruurta si loo hadda marka anaga Soomaaliya horta ujeedada ugu weyn oo inta badan aan kala shaqeynayno ama aan kala shaqeynaba waa sidii lagu sameyn lahaa xuquuqda carruurta si lagu ilaaliyo hay'ado badan oo difaaca jira hay'ado badan oo ilaaliya jira dadka sameeyay oo maaragtay inta saldhiga u ana ururkan waagiisa hore dad sharci yaqaan ayay ahaayeen marka in dib loo soo celiyo waa dhinac mid kale mashruucan Carawelo wuxuu kuma ekaanaya wadankan Holland sababta waxyaabo badan waxa la marsiin doonaa telefishinada waxa la isticmaali doonaa
waxyaabaha casriga oo dhalinyaradu wax isku gaarsiiso marka fariintu waxaan u maleynayaa inay meel walba ay gaari doonto oo tan iyo wadankii laakiin waan damacsanahay ruuxeeda inaan mashaariic noocan oo kale taa dalkiina geeyno laakiin ka sokow inaad mashruuc noocan kula aad qabataan oo aad looga hadlo dhaqanka waxa ka qaldan iyo wax laga bedeli karo ma jiraan talaabooyin aad qaadeen oo matalan gudaha wadanka Soomaaliya aad ka qabateen runtii gudaha wadanka Soomaaliya sanadkii dhaweyd 2-3 jeer ayaan tagnay oo marka hadaa fiirso dalka horta kulli hadda dagaal buu ku jiraa waxyaabo badan oo annaga inaan wacyigelin kaliya ma aha inaan xagga sharciga aan badana ka talino taas sida difaac loo heli lahaa waxyaabaha dhaca ayaan sameynay tababaro ayaan ka sameynay wadanka meelo kamid ah oo aan dad soo siinay waxaan jecelnahayna insha Allah hadda dhalinyarada iyo barnaamijkan wada iyo dadkii hore u soo wadayba in aan gaarsiino oo aan bridge uga dhigno halkaan iyo xaggaaba la isku xiro waxa kale oo jirta arin sanadkii hore ay si weyn uga hadleen warbaahinta wadanka Netherland oo warbixin daraasada sameeyay ayaa waxay sheegaysaa inay jiraan dad Soomaaliyeed qoysas Soomaaliyeed oo inta gabdhahooda ay geeyeen wadanka Soomaaliya ay si qasaba nin ugu dareen ama guur qasaba ay ku sameeyeen arintaasi maxaad kala socotaa runtii waxa nasiib wanaaga dhalinyaradii sanadka hore mashruuc kale oo ahaa kuwa waxyaabaha tabuuga sida looga hortagi lahaa dhalinyaradii ka qayb qaadatay oo tababarka qaatay ayaa fasax ku tagay Soomaaliya wuxuu la kulmay gabar sidaas oo kale inta laga kaxeeyay halkaan la geeyay oon cidna haysanin dhalinyar wiilkaas wuxuu u soo sameeyay kulay magaciisa ma uu jeclay in la sheego sababta maadaama gabadhii baa ku xirmaysa fariinteeda laakiin gabadhaas fariinteedii uu soo gudbiyay halka markuu yimaadana dad badan hay'ado badan oo la xiriiray ugu dambeyn waxay kamid ahayd arrimihii ay dadku Netherland ahaa ay dawladdu go'aan ka soo saartay oo ahaa gabdho badan oo ama la kaxeeyo la geeyay wadankii oo baasaboorada laga qaaday waa dhibaato jirta waalidku marka hore waxa loo baahan yahay halkaan iyo wadankiiba qofku meeshuu ku nool yahay in marka hore la diyaariyo marka runtii ka hortageeda ayaa muhiim ah wixii dhacay hadda gabdho badan oo qaar badan dhalinyaro badan la soo celiyay waa jiraan wiilal iyo gabdhaba dadaal dhinacaasana waa sameynaa laakiin ma muddo Shamso arinta ku saabsan in wax laga bedelo caadooyinka xun iyo dhaqamada sida guurka qasabka iyo waxyaabaha la mid ah ay yihiin wax u baahan muddo dheer in loo dulqaato maadaama Soomaaliya dhaqankaas uu ku xoogan yahay ayna sabab u tahay in dadka Soomaaliyeed badankood aanay aqoon asaasi aysan lahayn marka ma isleedahay waqti dheer ayaad ku qaadanaysaa inaad wax ka badashaan dhaqamada xun Soomaaliya wali laga isticmaalo waa runta horta wax walba muddo soo jiray dadka si wacyi gelin badan bay u baahan tahay wax la dhihi karo ma sanad gudaheeda inta mashruuc ku sameeyno laakiin qofku marka ugu horeeyo uu wax maqlo kadib laga doodo diinta xataa laga fiiriyo ma ogashahay dhaqanka dhinaciisa laga fiiriyo maxaa lagu gaaro wanaag ah taas ayaa hadda annaga noogu muhiimsan inay dadku dhexdooda ka doodaan iyagu go'aan ka gaaraan wixii xun iyo wixii fiican kadibna intii maqashaamintii ka qayb qaadata waa run sanad iyo 2 sano toon maahan dhowr sano ayay u baahan tahay aqoon badan bay u baahan tahay waqti badan oo la geliyo juhdi badan laakiin wax walba mar baa la bilaabaa haddana bilow maaha laakiin kulli waa doodo weligoodba bulshada la socdo la horumaraya horumarka wuxuu ka mid yahay dadku markay meel kale tagaan ama wax kale si kale nolol kala arkaan kaliya ma dadka wadanka jooga xataa moodaa in marmarka qaarkood ka fikrad furan yihiin dadka dibadaha jooga marka in la isku xirmo oo wixii fiican iyo dhaqanka fiican la xoojiyo sababtoo waxyaabo badan oo dhaqankayga aad qani uga ah oo lagu faani karo ayaa lagu bedeli karaa waxyaabaha yararka wali dib u dhaca keenay ugu dambeyntii mashruucan Araweelo yaanga ma dhalinyarada maanta furitaankiisa ayaa uu ahaa ilaa goormo ayuu soconayaa mashruucan horta 2 sano soconaya sanadkan uu bilowday ilaa iyo sanadka dambe toddobaaqadiisa 2 sano socon doona 2 sano waxyaabo badan qaar tababar ah dhalinyarada la tababarayo qaar hay'adaha dhalinyarada la shaqeeya la tababarayo hadhowti doodo hay'adaha dhexdooda ah iyo dadka Soomaalida ah marka waa runtii 2 sano hadda socon doona haduu Ilaahay yiraahdo waa masantahay Shamso